wafdi ballaaran oo horkacaya barasaabka gobolka saaxil oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha dibadejinta taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ayaa kormeer 2 maalmood qaatay ku soo maray deegaanada hoos yimaada degmada Bullaxaar oo ku taala dhinaca xeebta galbeed ee gobolka saaxil qiyaas ahaan u jirta ilaa 90 kiiloomitir magaalada Berbera. wafdigan oo socdaalkoodu ahaa uu kuurgalka xaaladaha nololeed ee dadka iyo dunyadaba waxay kormeer ku soo mareen dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada Bullaxaar sida tuulada Gargaarka Faruur Dabaraqas iyo tuulada Geeri oo dhamaantood kamid ah deegaanada waxyeelada ba'an uu gaarsiiyay roobabkii dhawaan ka da'ay Geeska Afrika. waxaanay halkaa kula kulmeen dad aad u tabaalaysan kuwaas oo sheegay in roobabkii ka da'ay deegaanadani ay gaarsiiyeen khasaare aad u tiro badan isla markaana uu laayay xoolo aad u tiro badan qiyaas ahaan lagu qiyaasay ilaa 500 oo neef sida uu xaqiijiyay oday ku hadlayay afka tuulada Gargaarka. yana wax yar buu waxyeelay oo ku aragtaan indhiina ku aragtaan kamid yihiin heeska wax la yiraahdo Gargaarka anuguna odagii meeshaan waxaan ognahay waa sidaa dhulkana ilaahay baa fiiray laakiin xooluhu aad bay ugu dhinteen oo waxaan u soo ka soo aragnay ahaadaan aba wax dhigta la nooga sheegay ahaadaan. waftigan intii ay ku sugnaayeen deegaanadan waxay gaarsiiyeen deeq mucaawimo ah oo isku jirta raashinka qaybihiisa kala duwan iyo bacaha roobka oo loo qaybiyay dadkii ku waxyeeloobay roobabkii lixaadka lahaa ee dhawaan ka da'ay deegaanada. dhinaca kale waftigu intii ay ku jireen kormeerkoodan waxay warbixino kala duwan kaga dhageysteen mas'uuliyiinta iyo odayaasha degmada Bullaxaar kuwaas oo uga warbixiyay waxyeelada iyo khasaaraha ka dhashay kii dhawaan ka da'ay dalka. horeyna waxaa halkaa ka hadlay mas'uuliyiinta degmada Bullaxaar waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaanu aragnay kaan neefo soo haray waxaanu aragnay ka 20 maqal oo soo haray waxaanu aragnay 7 neef intuu soo haray 7 meel kaga dhaqaaqay wixii loo qaban karo waxaan dawladda ku codsanayna iyo hay'adaha samafalka wixii la gaarsiin karo loo heli karo in loo keeno oo dadkaas waliba waxa u badan dad bilaahoy aan soo arag. halkaa ka hadlayay barasaabka gobolka saaxil Cali Maxamed Cilmi waxaanu ka warbixiyay ujeedada safarkooda isagoo xusay in dhibaatadii soo gaadhay dadkan xukuumad ahaan iyo gobol ahaanba inay wax ka qaban doonaan intii karaankooda ah. walaalayaal maanta halkan anagu waxaan idinku nimi dadku waa laba mid waa wixii xoola wax haysto laakiin aanay ka iibsan saa sheegteen iyo mid cayroobay oo aan waxba haysan mudnaanta koowaadna way kala leeyihiin anagu maanta waxaan u soconay wax weyn ma wadno iyadoo raashino gaariga saaran iyo meel bacaa ayaanu sleenahay waa bal wixii cayroobay xooluhu ay ka xasuuqmeen idinkuna ina priority-ga isa siisaan oo sida u kala mudantiin isu ilaalisaan baa la doonay. hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Cali Maro Axmed Warnacade iyo wasiirka dibadejinta Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa معاونة أو كي كب حيروب كي يجي سير إنه قرية نجي أدبر ريال وقولني بقى إنه لا هاي دتك إنه اللي يهرنتي وأنا مدة كلا إنه قصوا عنها هي ويجي مركل اللي يسوي ما أدو إن محوها أي ليس كلام أيوه أنا دي أروح هنا هنا ذكرام إنه وحلا وحي اللي يدين هي اللي كلام اللي ذكرها كلام maalmada uu soo degmada waxa loo soo diray imikana yaro emergency baan wadnaa markii la yiri dadkii waxa ku dhacay. dhinaca kale wafdigu intii ay ku jireen socdaalkoodan waxay booqdeen saldhigyada ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ay ku leeyihiin Bullaxaar iyo Ceel Sheekh waxaana warbixino ku siiyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Admiral Axmed Aw Cismaan. Maxamed Television ka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Berbera.